السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي ذي سود هذا دانو عصب تحن كلنا سود هذا هرنا لجيت وأقوم سنت على جوجا أنت نوع عصب حلنا سود هذا هاي نقل ما من شهر تقوم تيجي سبسكرايب كأنت بحينه يهندي رجالين إن شاء الله عود حقيقي وذا قصة حيسة بدن أو آد قيمة وكعبر قاش بدن يهدا دلنا يرنا هاي إن لقدونا إن قد خلنا إن شاء الله إلى نوافجيه isla socod wanaagsan haddaba xilligii Cumar bin Khadaab waxaa jirtay wiil yar oo masaajidka aad ugu xirnaa markasta uu Cumar soo galo masaajidka waxay indhihiisu qaban jireen wiilkii yaraa oo wax akhrinaya ama wax cibaado ama salaad ku taagan Cumar markii dhexe ayuu inankii waayay masaajidka uusan ku arkin hadduu weersaday oo dadkii weydiiyay waxaa loo sheegay in wiilkii geeriyooday Cumar oo aan geeridii wiilka iyo duugtiiba aan la ogeysiinin ayaa arrinkii ka carooday waxa uuna doonayay in uu u tago guriga reerkii wiilka dhalay guriga markuu tagay ayaa Cumar loo sheegay in wiilkii geeriyooday laakiin waxaa loo sheekeeyay qisadii cajiibka ahayd oo wiilka ku dhacday waxaa la yiri wiilka sida caadadiisa ahayd waxa uu ahaa cibaado dhalinyaro laakiin waxa jirtay baa la yiri haweeney deganayd inta u dhaxaysa masaajidka iyo guriga waxayna ahayd haweeney taajirad ah waxa ayna damacday oo jeclaatay wiilkii yaraa ee cibaadada badnaa markasta uu wiilka masaajidka u socdo waxa lisay markuu guriga u soo socdana way la hadlaysay sida ay mar waliba ula hadli jirtay inankii waxa dhacday baa la yiri mar ayuu u soo dabcay oo ogaaday in uu la istaago irida gurigeeda waxa ay ku qalqaalisay in uu horay u soo galo guriga albaabkiisa ayayna ka furtay shaydaan ayaa wax u qurxiyay inankii oo albaabkii ayuu soo galay laakiin halkii markuu marayo baa waxa la yiri wuxuu xasuustay cabsida Eebe iyo in wax uu sameeyay yihiin wax xun uuna xasuustay oo qalbigiisa qalow ku soo yiri ayaa aayad Qur'aan oo suuratul A'raaf Rabbi ka cabsado macaasida ka dhowrsada marka uu taabto mid wareegaya oo shaydaan ka mid ah waxay xasuustay ciqaabta Rabbi iyo jannadiisa waana kuwa arka ama xasuusta xaqa wiilkii markuu aqriyay aayadii wuxuu dhacay oo suuxay haweeneydii yaab ayay Allah u keenay waxay istiri hadii gurigaaga lagu yimaado meedkiisa qalaas adiga dilay ayaa lagu oran sidaas darteed meedkii iska fogeysay meedkii oo banaanka iska dhigtay banaanka ayay u soo saartay wiilkii oo suuxsan wiilkii oo sida caadada ahayd guriga laga waayay waqtigii imaan jiray waxaa soo baaday goobay aabihii oo dhabihii soo qaaday wuxuu arkay wiilkii oo banaanka yaalo aabihii wiilkii ayuu guriga keenay wiilkii ayaa soo naaxay isagoo guriga reerkooda yaala aabihii ayaa wareystay wiilkii oo yiri wiilkaygii oo ii waran sidee wax u dhaceen wiilkii wuxuu ugu sheekeeyay haweeneydii ay jirtay markasta ilaa hadli jirtay laakiin habeenkii ayaa ku leexday gurigeeda markaan galay gurigii ayaa Allah xasuustay oo waxaan aqriyay aayada Qur'aan ah kadib waan dhacay oo miirkii beelay aabihii waxa uu weydiiyay aayada uu wiilka xasuustay oo akhriyay wiilkii ayaa aabihii mar kale u akhriyay aayadii Qur'aanka ahayd kii mar kale ayaa wiilkii suuxay oo waxa la yiri sidii ayuu ku qaaday oo ku nafwaayay Allahu Akbar Cumar wuxuu yiri maxaa janaasada wiilka la iigu soo ogeysiin waayay waxay ku yiraahdeen amiirkii muuminiinta xilli habeen ayuu inankaani geeriyooday sidaa darteed in aan ku dhibno xilli ayaa nala xumaatay Cumar wuxuu yiri qabriga wiilka ha ila igeeyo waa la dulgeeyay wuxuuna aqriyay aayada Qur'aanka ee suuratul Aala Cimraan isagoo ku dul akhrinaya qabriga dushiisa isagoo Allahu Akbar waliman qaafa maqaama rabbihi jannataan wiilow qofkii alla ka cabsada waxa u sugnaatay 2 janno wiilkii ayaa dhawaaqay baa la yiri dhawaaq dadkii oo dhan ay maqlaan isagana u jawaabayo oo leh Cumaro rabbigay waa i siiyay 2 janno ee jannada dhexdeeda Allahu Akbar
waa darsi laga baran karo xusuusta cabsida Allah oo la xusuusta mar shaydaanku ugu xuteeyo fawaaxishta iyo sinada. Cabsida Rabbi qulubteena Allaha ka dhigo kuwii ay ku weynaato walaalayaal. insha Allah ay idinkugu soo gabagabeynaya qisadeena aad ku xiisaha badneed oo ku cimri qaadashada badneed. insha Allah inta mid la eena ku kulmi doon waxaan idinkaga teynaa sidaas iyo amaana Allah. haynaga hilmaamina share comment iyo subscribe ka inta bixi inoo yihiin dhiirigelin. salaamu calaykum asxaabteyda. inta mid la eena ku kulmi doon waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah.